Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida aad thumbnailka muuqaalka ku soo aragteen wax ku saabsan PDF iyo Word. Qaabkee ayaan isku bedeli karaa PDF iyo Word-ka? Aniga oo Word joogo, qaabkee ayaan ugu bedeli karaa ama sidee ugu bedeli karaa PDF? Anoo PDF joogo, sidee ayaan ugu bedeli karaa Word? Laba option waa sameynaynaa inagoo isticmaalayno computerkeena anigoo desktopka joogno iyo inaan u isticmaalno by internetka inaan dhahno convert PDF to Word, haddana convert Word to PDF, ama sidaa rabti u qor PDF inaad Word u bedesho ama Word inaad PDF u bedesho. Qaab kale waxaa waaye anigoo joogno dokumentigeena ama anigoo joogno desktopka shaashadeena oo aan isticmaalin by internet inaan dhahno PDF u bedelno Word, haddana Wordka inaan u bedelno PDF. Inta aanan u guda galin muuqaalkeena, fadlan hadday tahay markii kugu horeysay ee channelka soo booqato, subscribe-ka naga hilmaamin, like-tana waa inoo muhiim si aan u helno asxaab adigoo kala mahadsanid. Koodi hore waxaan soo kicinaynaa Wordka. Waxaan rabnaa inaan Wordka u bedelno PDF. Koodi hore waxaan isticmaalaynaa by internet. Kadib internet markaan isticmaalno, haddana waxaan isticmaalaynaa desktopka. Badanaa ardayda waxay sameeyaan in ay internetka ay ku kala bedelaan Wordka iyo PDF-ka ayagoo haysto laptopkooda, desktopkooda joogo, ayagoo Wordkii u jeedo oo ka fudud internetka una bedeli karo PDF inay by internet u aadaan. Maxay sameynayaan? Waxay tagayaan Chrome-ka. Chrome-ka markay soo kiciyaan, kadib waxay leeyihiin convert PDF to Word. Waa kana intuu qoran yahay convert PDF to Word. kadib marka wuxuu ku dhihi doonaa meeshan wuxuu kusoo bandhigi doonaa mawduucyo badan oo meeshan ku yaalo oo PDF lagu bedeli karo Wordka. Marka kan u horeeya aan doorano. Kan u horeeya marka doorano wuxuu ku leeyahay use a file. File-ka aad rabtid inaad PDF-ka u bedeshid inta soo geli. Inta markaa geliso wuxuu ku leeyahay from device ma rabtaa device-ka laptopka inaad ka soo doorato iyo option fara badan uu siinaa oo ay ku jirto Google Drive-ki iyo from Dropbox from small PDF-ki. Marka waxa kugu muhiimsan waxay tahay cashirkaadii ama Wordkaadii wuxuu yaalaa desktopka. Device-ka taabanaysaa meesha uu ka yaalo adiga yaqaano waa si dooranaysaa. Qaabkaas ayaa waxaa la sameeyaa in ardayda badankood ay u isticmaalaan by internetka. Haddana sidoo kale isla ayagoo meesha joogo ay haddana waxay dhahayaan convert Word to PDF. Way iska bedelayaan PDF-kaas meesha PDF-ka waxay soo gelinayaan Wordka, meesha Wordkana PDF. Si isla qaabka camal ay by internet u isticmaalayaan ayagoo haysto laptopkooda joogo desktopkooda ay waxay ka doorbidayaan inay aadaan by internetka. Waxaan rabaa marka in ardaydaas aan u faa'iideeyo intii taqaana way taqaanaa intii aqooninne insha Allah way ka faa'iidi doonaan. Marka waxaan sameynaynaa Wordka anigoo joogno oo aan soo kicino Wordkeena oo hadda u jeedno in Wordka imtixaan yar uu ku diyaarsan yahay. Waxaan rabnaa inaan u bedelno PDF. Marka ardaydu waxay sameynayaan sida hadoo kale inay internetka aadaan. Marka si aad marka PDF u bedesho oo adigoo Wordkaada joogo waxaad leedahay file. File markaa soo doorato waxaa kasii dooranaysaa save as. Save as markaa doorato wuxuu ku leeyahay intee dooranay intee dhiganaysaa xogtan aad rabto inaad save garaysato. Iska dheh from desktop. Kadib desktopka ka dooro. Desktop markaa doorato kadib meesha aad rabtid oo meelaha mini tabka gelin meelahaas waad sii gashan kartaa. qaybtii adiga aad jeceshahay oo rabto inaad xogtaas ku kaysato. Marka waxaan sameynaynaa marka meeshan joogno meeshan waxay noo saaran magaca. Horta qaybta koowaad magaca waa ka bedeli kartaa. qaybtana waxay tahay meesha ugu socono waxay tahay save as type. meesha la rabo qaabka aad u rabtid xogtaada inaad u save garaysato. Ma Word u rabtaa, ma noocyo kale u rabtaa, ma PDF u rabtaa, maxay tahay waxa rabtid inaad ku save garayso. isha sirta soo furaysa. isha sirta marka soo furto meeshan waxay noo yaalo waxyaabo badan. ugu horeyso
word documentigii, word micro, word 97 2003 documentigii, word templates, waxyaabahan oo kale midkii adiga jeceshahay ku save garaysane. laakiin aniga maanta waxaa u soconaa inaan wordkeenii aan u bedelno PDF kaas dooranayna kadib waxaan leenahay save as ama save. hadda waa kana cashirkii hadaayay wordka ahaa wuxuu noqday as PDF. soo xaqiijino hadaayay wuxuu ahaa maxay noogu qornaa hadaayay waxay noogu qornaa qaybta koowaad soo ma waa kana qaybta koowaad idoo PDF ah ayadoona wordna waa kana. qaabkaas ay tahay qaab aad u fudud. haddana waxaa rabtaa wordkii inaad u bedesho maaha aan afwan PDF-kii ayaa waxaa rabtaa inaad word ka dhigto. hadday internetka iyadoo ardayda isticmaalayaan qaabka isticmaalayaan waan soo aragnay. qaabkan waxay tahay PDF-kaa joogtaa waxaa leedahay right click markaa dhahdo wuxuu ku leeyahay meeshay ku qoran tahay open with. waxaan documentigeenan PDF-keenan aan waxaa rabnaa optionadan inaan ku furno. ma Adobe Acrobat DC-gan oo PDF-ka maan ku furaynaa, Google Chrome maan ku furaynaa, mise Launcher, mise Mendeley, Microsoft Edge, Word, midkaa rabtaa inaad ku furto. waxaan u socnaa waxay tahay waa Word. waa kana waa tabtee daayo noogu soo noqday. meesha harta waxaa leedahay cancel iska dheh. waa PDF-kii oo aan u bedelnay Word. marka waxaa rabtaa inaad PDF-kan waxyaabo meesha ku qorqoran inaad xogta ku yaalla aad ka bedesho. meeshaana rabtaa inaad wax kale aad geliso. markii aad samaysato waxaa rabtaa inaad PDF-ka ku celiso. waxaad samaynaysaa qaabka hadaayday oo ahaa inaad file soo doorato, save as dhahdo, kadib meesha aad ku save garanaysid ma desktopka taabato, desktopka meeshaad kasii doorto. haddana wordka documentigii aad inta kasii gasho kadib waxaa kusii dhifanaysaa PDF-ka. PDF markaa ku dhufato waxaa leedahay save. markaas wuxuu noqonaa PDF. marka labadaas siyaabood ayaa loo bedeli karaa by internet iyo by documentiga. waxaan filayaa inaad ka heshay muuqaalka. fadlan hadday taa markii ugu horeysay inaad soo booqato subscribe-ka waa xaggiina, like-tana waa inoo muhiim si aan u helno asxaab adiga oo kala mahadsanid.